South Sudan ayaa waafaqay inuu yareeyo tirada dowlad goboleedyada dalka taasi oo ay ahayd codsigii ugu weynaa oo uu dalbanayay mucaaradka. Madaxweyne Salva Kiir iyo madaxii falaagada Riek Machar ayaa cadaadis caalami ah la kulmaya si ay u soo afjaraan meelmarinta heshiiska nabadeed oo ay horey u wada gaareen. Waxaa labada dhinac loogu baaqay kulankooda toddobaadka soo socda in ay yeelan doonaan in ay ka wada heshiiyaan khilaaf walba oo dhex yaala labadooda. Madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir ayaa tallaabadan ku qeexay mid xanuun badan balse ay tahay lagama maarmaan haddii ay nabadda ku imaanayso. Haatan waxaa la sugayaa jawaab ka imaanaysa dhanka Riek Machar. Mucaaradka ayaa ku adkaystay dhimista tirada gobolada sababtoo ah waxa uu ka shakiyay in madaxweynaha uu doonayo inuu sare u qaado awoodihiisii oo uu jagooyin u magacaabo dad asaga daacad u ah. Haatan muddo toddobaad ah ayaa ka dhiman xilligii loo asteeyay in la sameeyo dowlad wadaaga. 10,000 oo qof ayaa la dilay, in ka badan 2 milyan oo qofna waxa ay ku barakaceen colaadda dalkaasi ka dhalatay farqiga siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Salva Kiir iyo Riek Machar. Labada hogaamiye ayaa horey u saxiixay dhowr heshiis balse ma aysan noqon kuwo miro dhalay. Salva Kiir ayaa wadanka madaxweyne ka ahaa tan iyo markii dalkaas Koonfurta Suudaan ay xornimada qaateen oo sanadkii 2011 ay ka qaateen Suudaanta kale oo hogaaminayay Omar al-Bashir. Dagaalkan sokeeye ayaa waxa uu dalkaasi ka bilowday sanadii 2013 kadib markii uu khilaaf dhex maray madaxweynaha dalka South Sudan iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa isagoo markaas ahaa Master Riek Machar.